waxay si daran ugu jabeen dagaalkii labaad ee adduunka, laakiin waxay iyaguna ku guuleysteen dhisidda dhaqaale ballaaran. sidii Japan mar labaad cagaha ugu soo istaageen iyagoo ah dalka keliya lagu dhuftay 2 qumbulood oo nukliyeer. muuqaalkan inta ku jirno ayaan kaga jawaabi doonaa. fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe saar si noola socoto muuqaalada dambe. daawasho wacan. sanadkii 1945 ayaa Mareykanku ku dhuftay 2 qumbulood oo nukliyeer ah 2 magaalo ku kala yaala Japan, Hiroshima iyo Nagasaki, si ay Japan isku dhiibto dagaalkuna u dhamaado. ugu dambeyn Japan u isdhiibtay dagaalkii labaadna xaggaas ay ku soo dhamaaday. Japanese-kuna waxay ku soo baraarugeen hal mar burbur baaxad leh oo 67 ka mid ah magaalooyinka Japan dhulka galeen, waxaana ka mid ahaa caasimadda Tokyo oo 51% magaaladu ay burburtay. Mareykanku intaas kuma ekaan dagaalkii kadib waxaanu soo farageliyay Japan, waxaanu ka dhigay dal raasamaali ah, wuxuuna ka ilaaliyay dalkii shuuciyadda ah ama shuuciyiintii bariga degana si aanay Japan u noqonin dal shuuciyiin. soo kale dagaalkii Koreooyinka kontameedii qarnigii la soo dhaafay ayaa Japan ka dhigay mid ka mid ah xulufooyinka reer galbeedka, saldhigna u ahayd taakuladii la siinayay koonfurta Kooriyada intuu dagaalku socday. jabkii Japan ka soo gaaray dagaalkii labaad adduunka waxaa reer galbeedku ka saxeexan in aanay Japanisku samaysan karin ciidan ballaaran oo aanay marnaba military ballaaran oo weerar qaadi kara yeelan karin. intaas kadib Japaniskuna waxay u leexdeen dhankaas iyo dhaqaalaha. waxay bilaabeen Japanisku markaas inay arday u dirsadaan dhankaas reer galbeedkii ay ku tuhmeen horumarka. ardaydaas ay dareen waxaa ka mid ahaa ardaygii soo bartay qaabka matoorada gawaadhidu u shaqeeyaan, kadibna Japan ka asaasay shirkadda weyn ee maanta wada naqaano ee Toyota lagu magacaabo, kana mid ah shirkadaha gawaadhida sameeya ugu horumarsan maanta caalamka. wuxuu gaaray dakhliga Japan sanadkii la soo dhaafay 5 trilyan oo dollarka Mareykanka. dakhliga shakhsiga ama muwaadinka Japanisku helana wuxuu gaaray in ka badan 40,000 oo dollar sanadkii. waxaa xusub mudan in Japan aanay lahayn wax kheyraad ah ama wax kheyraad ay dhoofiso. marka laga reebo kalluunka, Japan ma leh shidaal iyo kheyraad kaloo la sheego toona, laakiin waxay dhoofiyaan waxay gacmahooda ku sameeyeen sida gawaadhida oo kale iyo tiknoolajiyadda. Japan soo kale waxay ka kooban tahay in ka badan 6,000 oo jasiiradood, waxaana qiyaas ahaan sanadkii la kulantaa Japan 1,500 oo dhul gariira. haddana saasay tahay waa dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha ballaaran caalamka marka laga yimaado Mareykanka iyo China. shacabka Japan wuxuu ka mid yahay dadka ugu aqoonta fiican caalamka, dad wax bartay, inkastoo dalku aad uga cabto gabowga ama dadka waaweyn sababtoo ah dhalinkii ayaa yaraaday. Japan sirta ka dambeysa guushooda ayaa ah dadkooda ayay wax bareen, kadib ay dadkina meel aanay dhaqaale jirin dhaqaale ka soo saareen. dhaqaalahaasoo maanta alaabta Japan samayso waa caalamka wadan walba dhex yaallo. haddaba horumarkaasay gaadheen iyo meeshaasay maanta wadan walba dunida ku yaallo uu ku haminayo. haddana saasay tahay waxay Japan leedahay dhinac aad u madow oo waxaa jira Japan dhexdeeda meel geeda ah ama dhir dhexdooda oo kaliya loo tago in nafta la iskaga qaado, in nafta la isdhaafiyo. waxaana Japan ka mid tahay 10 dal ee ugu badan ee dadku isku deldelaan caalamka oo dhan. Axmed Shaqiir ninka la dhaho idin muuqda hadda waxa laga yaabaa in garansi badankiinu ay ku caanka ahaa barnaamijkii Khawaatir lagu magacaabay ayaa mar uu tagay Japan wuxuu booqday maktabad qayb dhan oo ka mid ay tahay buugaag ka hadlay istilista ama kula talin shacabka Japan in aanay istilin, in aanay isku dayin lacag darteed ka waaninaya. waxaana xagga ka dareemi kartaa heerka uu ka taagan yahay istilista ama qofku inuu si fudud naftiisa isku dhaafiyo. muuqaalkan maanta Japan kaga hadlayna intaas isku egyahay. waxaan rajeynayaa inaad macluumaad badan ka faa'iiday. fadlan dadka ka heshay subscribe saar lana sii wadaaga asxaabtaada. Assalaamu calaykum.